هودي 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 waa tahay dhegaystayaal markaana xubinteeni hodi ayaan guda galaynaa dhegaystayaasha markaasi ayaa inta badan iyagoo khadad teleefanada warbaahinta soo waca iyagoo markaasi ka warbixinaya xaaladda degmada iyo weliba xaafadda ay ku sugan yihiin haddaba dhegaysta si aad markaasi xubintan kaga qayb qaadato waxaa soo wici kartaa eber 6 eberhal fariinta barnaamijka waad kaga qayb qaadan kartaa adigoo markaasi si toos u soo wacaya eber 6 eberhal saaki waasige jawiga degmadaada ka warbixi dhegaysta هودي 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 waa tahay dhegaystayaal markaana waxaan jeclahay inaan siiyo dhegaystaha khadka ku jiro si markaas ugu warbixiyo xaaladda deegaankiisa halow dhegayste mii maqashaa kaadhe haye magacii deegaanka haye magaca igu celibo haye sidee lagu yahay degmada saakay bal ka warbixi xaaladda isku socodka dadka iyo saakay sidee loo soo toosay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa tahay asxaabay xubintii hodi ayaan weli ku jirnaa oo dhegaystayaasha markaasi digaankooda ay kaga warbixinayeen dhegaystaha khadka ku jira halo Africa FM halo Africa FM waan ku maqlaa magaca deegaankaada magaca waa xasan ismaan xasan nuur ala wali saxdi degmada gaaraan xaafadda Mas'uudiin haye xasan oo saaki xaafadda sidee lagu yahay sidee loo soo toosay xal waxaan ku diifanay nabad saaki waxaan ku soo kacay nabad waxaan u samaatay Allah saaki dhammaan albaabada la furay dugsiga quraanka iskuulaadkii jaamacadii weynaa Soomaaliya ayuu dhammaan saaki waa la furay albaabada وعلى الباب الأخرى تركيا وين هرمود نيشلين سمسل لمان ساكي الباب الأخرى وضع صدق وشقينا وضع وضع وشقينا لمان ساكي أدياش وحي حضرها أيام سياسة دا دليل وحي حضرها سبورتسكا أفريكا I love you aad iyo aad baad u mahadsan tahay xasan sida wacan oo markaasi kaga qayb qaadatay waa tahay dhageystayaal weli xubintii hodi aad ku maqli jirteen barnaamijka ambaqaadka wararka subaxnimo raadiyaha Afrika ayaad weli dhageysanaysaan waa tahay dhageystaha iminka khadka ku jira ayaan jeclahay inaan siiyo jaaniskiisa si uu deegaankiisa ugu warbixiyo halo Africa FM halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المقعي دقمده واتاي dhageystaasina khadka ayaa ka go'ay waa ka xumahay waxa filayaa inuu markaasi inuu barnaamijka dib u soo jaleeci doono hase yeeshee qaybihii dambe ee xubintan waan isla soo gaarnay dhageystaha imika khadka ku jira doonaya inuu ka warbixiyo xaaladda deegaankiisa halo Africa FM وعليكم السلام ورحمة أديكو عدك على صاروخ هذا يا مقعي ديانك يقبلاو هلا وانكم مقعي ديانك هذا سيد محمد عرب ما بيني أصل لا تنقطع أنا كذا طلعنا أصل لا تنقطع أنا لو قدرنا حلقة في عن ديالي كنت أطلع عن طلع إذا ما جبنا قليل كان أنا كان حسيت بالصورة وهذه هذا قبي جناح قبي عظمة الكتاب ولا يبدو قصة ولا تبدو قصة وتهاي وكبر سكان سيد وعنا برامج خير قادتي ساكن تسوح إلى حالة جودهم بدين إلى وامد دجن اسكول الذي باشخينيا الدكسيدي قرآن كوالله دري إلى ده واتاي هذا يوم عسان تاي رجستاه هي خدك كجرة
halo Africa FM. halo assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله. codkaada adigoo sare u qaadaya bal igu bilow magacii deegaankaad saaki nagala soo xiriirayso. maxaa walaashay waa nuurta ismaan degmada kaaran xaafisay waa tahay saaki kaaraan sidee lagu yahay haddii ahaan leeda dhanka isku socodka dadweynaha iyo sidee xalay ku jiifateen sidee ku soo toosteen. haddii dhegeystayaasha haddii warbixinta ka jiro degmada kaaran 24 saac soo dhaafay wax kala saacada waxaan ku shaqeeyay waxaan ku shaqeeyay waxaan shaqeynaa dhammaan gaadiid ganacsiga ee laga bartay degmada kaaran waxaan shaqeynaa farmasiyo dalxiiska beerta walaashay waa waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida waana barnaamijka kaga qayb qaadatay welina xubintii hood ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal markaana ballanka fariimaha haddii aan jaleeco dhegeysta baa leeyahay asalaamu calaykum aan ku salaamay saaxiib sare cabduqaadir fiidka adiga dhammaanba bahda Afrika saaki waxaan ku suganahay degmada Howlwadaag jawigu waa mid degan nabad ayaan ku jiifanay xalay saakina waan soo toosnay bye subax wanaagsan waa tahay dhegeystaha khadka ku jira halo Africa FM askay waa ku salaadnaya adiga farsamanka dhammaan asxaabta idaacadda Afrika aan soo wanaagsan mid talacayna kaabe magacii deegaanka كاتي أنا ما سنتهاي عبد الله حدي كوادران كارسو جنقاليا وشحن كون عشان كاسيو أبي بيتياشا أفضل كارسو داكي أفضل كملان حالي ما حنفتان جيد بنساكن حنفوق عن متعلم أمان مهدلان وحاسكال يعني السؤال كان تحققت بسيرة السؤال سيادة الشقينية لو تساكو حاشقين نقول جناسي عاصمات الشركية حوالي كوننا سوق لها الشقين سوق وين سوق جاتا إن ساعتكي دموع توحى لنا كمية وبالله تصل. وعطايا دياد بعد ما صنتها سيدا وعن مركز حبيتها كيخ بقادتي وأنا كأجمع هاد علينا يا بالفريمة أنا مركز هدي أنسينا السلام عليكم نمكم ورحمة رستا ديني للجو آدي آد أيو أدقين هاي وأن دين سلام جل دوات هاي دقيستا سينات بيوم هاد صنتها هاي سيدا وعلي مركز برامج كيخ بقادتي dhegeystayaal hadda fariin soo gaarsiiyay suugana waxa uu leeyahay assalaamu calaykum dhammaan bahda Afrika barqo wanaagsan waa subax wanaagsan waa idman ilays joogta degmada hodan runtii walaal 24kii saac ee aan soo dhaafnay maysan jirin bay leedahay inanta tano wax qalalaasa ah jawiga degmada hodan waa mid degan habbi hadda waxay leedahay dagaalada ka taagan Puntland oo kaliya ayaa umadu khalala markaasi muruga ku hayso okay 143 dhabaan bahda Afrika subax wanaagsan ayaa leedahay aad iyo aad bay u mahadsantahay xubintii hood ayaa dhegeysanaysaa dhegeystayaal waa tahay markana waxaan siinayaa dhegeystaha u dambeeya markaasi ku soo gabagabeynayna barnaamijka halo Africa FM halo assalaamu calaykum وعليكم السلام صاحب waxaa tahay dhageystii u dambeeyay markaas barnaamijka lagu soo gunaanudayo bal waa sidee dareenkaada ka hor intaadan guda galin xaaladda deegaankaada wallaahi aad ay faraxsanahay inaan noqdo dhegeystaha ugu dambeeyo magaceena waxaa yidhaahdaa maafia kirankiyo saaxib haye saaki ka waran deegaanka isku socodka xalay sidee ku jiifateen saaki sidee lagu soo toosay waa sidee saaki jawiga wallaahi jawiga degmada saak aad u deg waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasina sida wacan oo barnaamijka kaga qayb qaatay xubintii hoodiina waa naga intaa dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijkii ambakhaadka wararka subaxnimo raadiyaha Afrika ee magaalada Muqdisho tahay dhegeystayaal guud ahaanba waxaan jeclahay barnaamijkii ambakhaadka wararka subaxnimo raadiyaha Afrika ee magaalada Muqdisho aad ku maqasheen markaas qodobada xasaasiya oo ay ka mid ahaayeen
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka xukuumadda Soomaaliya haddana ah xogayaha guud ee xisbiga Jiljo Dr. Axmed Macalin Fiqi oo ka warbixinayay isla mar ahaantaana carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay u baahan tahay ciidamo awood leh in loo dhiso si markaas ay u hantaan hoggaanka dalka loona baahnayn inuu in magaalada Gaalkacyo la geeyo ciidamo shisheeye qodobadaas iyo kuwo kale dhowr ayaa barnaamijkii ambaqaadka wararka subaxnimada raadiyaha Afrika aad ku dhageysateen sidoo kale inta xubintii hodi ayaa barnaamijka iyadana ku jirta dhageystayaasha markaasi deegaankooda saaka xaaladda sida ay tahay kaga warbixinayeen barnaamijku waxa idiin soo saar halkan idinku taginayay anigu saaxiibkiin Cabdulqaadir Umar Cabdulqaadir Fiidka barnaamijka waxaa farsameynayay injineer Cabdinaasir Axmed Yuusuf tan iyo barnaamijkeena xiga dhageystayaal isma dhaafna sidaas iyo nabadgelyo